dantii guud oo magaalada wala war maxaynu ka qabanaa iyo maxaynu u qabanaa council intuu fadhiistay yaa ma oran waayo iyagii baa koox isku haya waxa weeye ma soo xushaan korun baa laga keenaa ku yaasmaana oo aan waxba ahayn oo beesha anfacayn dadkana anfacayn dalkana anfacayn iyada wada keenta oo warqad waa beebarde dadku laakiin miisaanan marka la lacag baa laga hadlay marka la yiraahdo wagaasima maaliyadeed lacag ayaa u baa loo hayaa laakiin waa warqad hayo dadku kaba xisaabtamaan laakiin lacag ayaa u wagaasima maaliyadeed loo yaqaan markay caadigeena maayirka kaliya xukuumay horta ugu wanaagsan oo golo shaqo badnay xaqiiqa marka inta la isu sheego 22 nin marka dhinac fadhisay 22 maalkii Cabdimusaar Walaal 22 maayir bay yeelatay 22 ka markuu maayirka iskaga waxba qaban maayo isaga intaas qofna ay shaqaatig tahay anigu waxaan ku taran lahaa inaan golo deegaan cudbada u dooro oo inaga daayo waayo dhibaatadoodii ayaa baratay dadweynaha reer Soomaaliland waxay markii ugu horeysay u codeeyeen oo ay doorteen golo deegaan sanadii 2002 waxa ka soo wareegay waqtigaas 8 sanadood waxaanu ku falanqayn doonaa filimkan isla markaana daaha kaga rogaynaa waxyaabihii ugu muhiimsanaa ay la kulmeen golihii la doortay iyo caqabadihii ka hor yimid muddadaas 8 sanadooda dawlad dadkeeda canaananayaba deemka inoogu horeyso waaba iyada lafteeda horumar gaadhnay iyo horumar gaadhnay hadalladan ayaa ka soo yeedhay muwaadiniin reer Soomaaliland oo uu akaadimku wareystay xilligii lagu guda jiray safarkii dheeraa baahida loo qabo maamul dhaadhacsan ayaa noqotay arrin aanu muran ka taagnayn doorashadii golayaasha deegaanka ayaa ahayd tallaabo muhiim ah oo suuro gelisay in lagu sii soqo maamul dhaadhacsan 8 sannadood kadib bulshada Soomaaliland waxay isweydiinaysaa intee in leeg ayaa ka hirgalay waxyaabihii ay hiigsanayeen Soomaaliland waxay haatan leedahay ilaa 70 degmo 23 ka mid ah degmooyinkaas ayaa sharciyan dooran kara gulahooda deegaanka kuwaasoo 12 ka mid ah aanay doorashooyin ka dhicin waxaa haatan howlgala 399 wakiilo loo soo doortay ama la magacaabayba halka ay ka shaqeeyaan ilaa 450 guddiyo oo ka dhisan degmooyinka dastuurka Soomaaliland ayaa dawladaha hoose madax bannaani u siinaya sidii ay u maamuli lahaayeen howlahooda iyo ururinta dakhligooda dastuurku wuxuu aad u adkeynayaa madax bannaanida dawladaha hoose ilaa heer degaankooda inta ku kooban deegaanka inta mas'uulka ka yihiin degmadaas ay ka kooban tahay ayuu siinayaa inay u madax banaan yihiin horumarintooda dakhli ururintooda iyo go'aanka gaarista wixii aan ka hor imaanayn shuruucda dalka u taal si kastaba ha ahaatee waxa haddana jira ismaandhaaf uu salkiisu yahay qodobo dastuuri ah balse markii la sameeyay aan aragti badan laga lahayn qodobka 12aad baa wuxuu leeyahay baahinta awoodda maamulka wuxuu leeyahay maamulka adeegyada bulsho sida caafimaadka waxbarashada oo ilaa heer hoose dhaxaa xanaanada xoolaha nabadgelyada gudaha biyaha nalalka isgaarsiinta iyo wixii la mid ah bal waxa uu daba dhigay haddana hadba heerka ay hanan karaa ay daba dhigay oo iyaduna aan caddayn waxa loola jeedo hadba heerka ay hanan karaa dabacsanaanta shuruucda wada shaqeyneed ee dawladda dhexe iyo dawladaha hoose ee qaranka ayaa ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee hakiyay in maamulku sida ku qeexan dastuurka hoos ugu dhaadhici waayo waxaan anigu aad u aaminsanahay meesha waxa maqan sharciga maqan xeerka lagu soo maqan meelaha xeerjina wala soo hormaraya waxa sababulada iyo degmooyinka ay kala xariisnay ayaa u kala xariisnay maamulkii wasaaradaha heer degmo iyo gobolsiyo xildhibaanka oo sheegay xeerka waxa soo gaaray inta ku saabsan lacag laakiin ta dhaqaalaha soo gaaray
fikrado kale ayaa aaminsan inay jiraan shuruuc kala xadeeya labada awoodood ee dowladda dhexe iyo dowladaha hoose balse ku dhaqankooda uu weeqsan yahay waxaana dowlad hoose iskale oo isaga cad yihiin waxaana dowladda dhexe iyo dowladda hoose iska kaashanayay waxa la wixii isu duwa waxa laga xukumaa deegaanka barasaabkay noosta waxa la wixii isu duwaasha hoose ah ee degmooyinka dalka laga xukumo laakiin yaa ku dul fadhiya dee saldhigga oo kale dee qaybtii baa ku dul fadhida agaasimayaasha yaryar dee agaasimihii guud baa ku dul fadhiya waxaa maqan kulan wadaajintoodii ayaa markii hore majara habowday waxa weeye markii la dhisay waxay in loo yeero taliya saldhig loo yeero maamula caafimaadka kaxanaada xoolaha kan kulli loo yeero la yidhaahdo ciddii ku xukuntay waata yaa wasee u xukuntaa marka ma shaqadiisaan ku xukumaa maya shaqadiisa wuu madax bannaan yahay laakiin dee amarka umaan ku xukumaa laakiin shaqadiisa waa shaqa uu madax bannaan yahay dad badani waxay isku waafaqsan yihiin in doorashadii golaha deegaanka ee 2002 aanay ku soo bixin xildhibaanadii loo baahnaa ama ku habboonaa khaladaadka dowladda hoose ay leedahay ee soo ifbaxaya wuxuu ka soo unkamay inta aanay gelin sharci dejintii intaan la gelin wuxuu ka soo unkamay qaabkii xulashada golaha deegaanka loo soo xulinayay ayaa xulinayay golaha deegaanka oo soo xushay waxa soo xushay xusbiyada waxana ansixiyay commission wax la yiraahdo baasi doorkii ay qabyaaladu ku lahayd xilligii murashaxiinta la soo dooranayay ayaa iyaduna mowduuc kale lagu soo qaaday howlgalkii sahaminta ahaa golayaasha deegaanka markii la dooranayay waxa la yiri ugu ridow mid aan dariiqadeedii garanaynin iyo mid garanay wixii wala isku qabtay mid dowladda xaq daaqada soo tuurtay kolka loo karkala imanayay kareerka iyagu isagu un baa yimid oo iyagu yidhi aniga halay doorto maada isa soo bandhigay ha dadku baad ka mid tahay tagbaanun halkeen ka tagina ka banaande oo dadkana dhankeen inaga celi xaqiiqdan ayaa keentay in la soo doorto wakiilo deegaan oo aan sidii ku habbooneyd isula jaan qaadi karin nin waliba wuxuu aaminsan yahay inuu isagu damaayirkii meesha ka yahay ama reer bay soo dirsaday ama xisbaan ka macaankan fikirku uu ka yargedisan yahay kadibna ay caqabadba noqotay halkii laga shaqayn lahaa bulshada looga shaqayn lahaa inay iyaga gudahooda caqabad bay noqotay in iyaga keliya la dhexdhexaadiyo tusaale ahaan xildhibaanada golayaasha deegaanka ee dalku ayaa laga soo bilaabo doorashooyinkii 2002 waxay mar walba caleema saarayeen maayir cusub oo muddo yar gudaheedna ay xilka ka tuurayeen marka laga reebo degmooyinka Hargeysa iyo Ceerigaabo dowladda hoose markay caadigeedii maayirka kaliya xukuumay horta ugu wanaagsan uguna shaqo badnay xaqiiqa marka inta la isu sheego 22 nin markay dhinac fadhisay 22 maalkii Cabdimusaluuna 22 maayir bay yeelatay 22 markuu maayirka isgeeyay waxba qaban maayo isaga intaas qofna ay shaqaatig tahay anigu waxaan ku talan lahaa inaan golo deegaan cudbada u dooro oo inaga daayo waayo dhibaatadoodii ayaa baratay fikirkan wuxuu ka turjumayaa in horumarkii xiriirkii ka dhaxayn lahaa bulshada iyo golayaasha deegaanka aanu weli taabagelin waxbaydan isku tuurtuuna waxyaabo badan baa naga maqan hadii aan anagu bulshadii soo dooratay waanu tabayna waanu dareemayna laakiin waxaan leenahay hore u mara oo balnoo doona xaqiiq wixii aan lahayn tan intii dib loo aasaasay dowladaha hoose ee Soomaaliland waxay ku guuleysteen in dib loo abuuro ilihii dakhliga balse mar walba waxay isweydiin mudan dakhligu ma yahay mid ku filaan kara baahiyaha taagan magaalada markay dowladda hoose yeelanayso waa inay dakhli ay leedahay jira waa inay dakhligaas soo urursataa miisaaniyad u samaysaa siday u kharash garaynaysaa iyadu dhigataa dowladaha hoose ma awoodaan inay waqtigan xaadirka waxa looga fadhiyo ee bulshadu uga fadhido ee lagu dhaliilayo inay qabtaan xildhibaano iyo mas'uuliyiin tiro badan oo dowladda hoose ee Soomaaliland ka tirsan ayaa ku doodaya in sababta u weyn ee tani u jirta ay tahay kharash la'aanta haysata dowladaha hoose ee Soomaaliland baahida taagan iyo dakhliga aan hayno ayaa mar walba wax badan baahida marka laga yimaado culayska xeer lambar 12 ee la xiriira mideynta cashuuraha waxa jira caqabado kale oo door ku leh in aan la fidin karin
dakhliga cashuur ururinta ee dowladaha hoose. islaanta halkan fadhida kaliya baa bararay meel ay kor tagtaba male adigna waxay dadku taageerayaan keen cashuur laakiin markaad xamaam u samayso ee ay tagto meel ay xajoogto ku hagaagsanaato dee waxay xidhiidha cashuur weyn ku dhigi kartaa hay-adahan ama sharikadahani dhismaha kama qaataan liisan laydharka warshadaha kama qaataan liisan iskuullada brivatka kama qaataan liisan dhakhtarada brivatka kama qaataan liisan iyo ganacsi waa islaanta hadhuurka islaanta caanleyda macdaarka yar iyo bakhaarka maamulku markuu cashuurtiisii urursan kari waayo plan wanaagsan oo qorshe hawleed wanaagsan u samaysan kari waayo xidhiidh wanaagsan la samaysan kari waayo dadweynihii xukumayey adeeg uu qabanayo maarta bulshada adeegii uu xil saaraa ee cashuurta uga qaadaya uu qabanaya aanay jirin waxay la tahay waxaa meesha ku jiraan inkastoo awoodda dakhli ururin ee dowladda hoose kooban tahay haddana muwaadiniin badan ayaa waxay iska weydiiyey halka ay ku baxdo cashuurtaas laga qaaday ilaha ugu badan ee dowladda hoose imika haystaa waxa weeye shaqaalaha oo ku badan oo wixii dadka laga qaaday ka soo noqonaya dadweynaha tan mushaarka waxa weeye shaqaalaha aad iyo aad u badan diyaarinta miisaaniyad sanadeedka ayaa dhibaato weyn oo dowladaha hoose ka haysata ururinta maamulka iyo kharash gareynta dakhliga miisaaniyadda ay sameeyaan waxa ay ka soo dheegteen dee malaawaalkii sanadkii hore ay arkeen kumay salaynin dowladaha hoose miisaaniyadda markay sameynayaan kuma salaynin baahiyaha laga rabo ee bulshadu ka rabto miisaaniyad baanu samaynay ku talagalkuna waxa weeye inuu actually sidiisa u dhaco uu waqtigiisa dhaco uu maalintiisa dhaco uu bishiisa dhaco uu sanadkiisa dhammaado xaqiiqdan ayaa yeelatay caqabado dhowr oo ay ka mid tahay inaan lagu kalsoonaan karin miisaaniyadda la ansixiyo sanad walba maadaama ay tahay mid nugul isbeddello ku yimaada ilaha dakhliga caynkaas ayaa laga filayaa heerka dhoof xoolo intaas laga filayaa xoolihiiba intii lagu talagalay dhoof waayay dakhligii la sii qoray ee la sii geliyay meesha in intaas soo bixi doonto ayaa meesha ka baxaya oo la waayay dadku laakiin miisaaniyadda marka la lacag baa laga hadlaya marka la yidhaahdo agaasimo maaliyadeed lacag hayaa u baa loo hayaa laakiin inaan warqada hayo dadku kama xisaabtamaan laakiin lacag hayaa u baa agaasimo maaliyadeed loo yaqaan iyadoo ay taasi jirto ayaa haddana marar badan loo baahdaa kharashyo dheeraada oo aan hore loogu qorshayn miisaaniyadda mini awaalka sanadkii hore ku dhisnayd waxaa lagu odhanayaa halkan ceel gardi bay ka qaraxday dabeedna waa la isku qamaamo meeyarkii waxa markiiba lagu qasbayaa in 30 milyan 40 milyan meel ay ku qoran yihiin aanay jirin in la expressbareeyo waxa la istaariya 7 technical state military waxoogii ma wataan oo iyagu waxay leeyihiin maamulkii degmadu anagu military baan waxa ma hayne ha keenan marka cuntadii shidaalkii wixii laaluushkii la siinaya ka tuuga ah ee waxa sameeyay waxa soo miisaaniyad aan loogu talagelin baa meesha ku baxay iyadoo ay duruufahaasi haystaan dowladaha hoose ee dalka ayaa haddana dadweynaha mar walba si weyn isha ugu hayaan tayada adeegyada ay dowladda hoose bixiso markii ay doonayeen codaynta iyo in xubnaha dhibaanada la doorto iyo in golaha deegaanka la doorto mikrofon bay la wareegayeen ilaahay xanoo coday waxbaanu qabanayna halkan aan cadeynayna halkan aan mudoobeynayna bulshada anaga ku filan imikana waxay leeyihiin dhaqaale ma hayn markaa ma dhaqaale xisaabtami isla baadi doon laayeen yaanka ka doon laayeen markaa ka fakareen intay ma ka fakarayaan markaa waxaanu leenahay ee dhaqaalu dhexdeenu buu ku jiraa aynu iska baadi doono waxana aynu qabanno hawshan aynu dhaqaajino marka ay sameynayaan miisaaniyadda cid ay markaa u sheegeen oo shacabkana u shaqeeyo u gudbiso kala miisaaniyadda sanadkan dawladda hoose qabatay inta waxay ku bixiyeen shaqaalaha inta waxay ku dhiseen nuura inta waxay ku maalgeliyeen caafimaadka runtii ma jiro ka warhayn la'aanta iyo ka qayb qaadasho la'aanta dadweynaha Soomaaliland ee go'aamada ay gaaraan gulahooda deegaanka ayaa shaki ku abuuray furfurnaanta iyo heerka dimuqraadiyadeed ee maamulka golayaasha deegaanka maxay ku weydiiyeen su'aasha maxay qabaan maxay u qabanaysaa cashuurta maxay ku weydiiyeen sababta ma garan adiga ayaa kala xiriir furan marka haddaan dadku la xiriirin waa in cidina hayso iyo bulshada meeshii waxaa lagama maarmaana in wada tashi la helo oo shacbigii iyo maamulkii dowladda hoose wada tashi ay sameeyaan kadibna wada tashigaa laga duulo
wadatashiga iyo iskaashiga dhex maray dadweynaha iyo golayaasha deegaanka ayaa mararka qaar si fiican u hirgalay xidhiidhkoodaasoo noqday mid midho dhala kii annagu aanu iskaashanay ee aanu waxayagii isku darsanay waynu arri mashruuc ugu noo furay waxaanu doonay 5 kilomitir oo waddo ah iyo 2 kilomitir oo iyaguna dusha u baxay 7 kilomitir baanu doonay hadda waxa alxamdulillaah waxaanu dhammaystiranay 5 kilomitir iskaashiga noocana oo u dhaxeeya bulshada iyo golayaasha deegaanka ayaa ah mid ku kooban meelo iyo duruufo gaara arrinkan oo muuqdo inuu curyaamiyo himilooyinka maamul daadejinta ee dalku hiigsanayay hadday noo dhaadhacsan tahayba oo aynu garanayno structure-ka aynu ku soconay inuu qaldan yahay muhiimaddu waxa weeye sidaynu uga soo noqonnaa markaa dawladdu waxay ahayd inay nidaamkaas oo ahaa nidaamka dimuqraadiga ku salaysan xukun daadejin marka waxqabadka meelahan daldaloodan aanu eegayno horta waxaa ka weyn inaan isweydiino systemkii manoo dhismo dhisitaankani ayaa wuxuu yahay mid iman kara marka la helo isbeddel wax ku ool ah oo taabanaya 3 dhadhaar ee maamul daadejinta ee siyaasadda maamulka iyo maaliyadda ma aha oqolaa ma aha macrufada ma aha shaqaan ka caajisay waa shaqo ay sida noola jirto haddaanan tallaabada ilaa heer qaran laga wada qaadinin ama isbeddelka dowladnimadeena aanu qoysi ka iman mid hore loo geli karayo maya ومالنا